shirka raayada saaka qabteen madaxweynaha maamulka Khaatumo State of Somalia iyo afayeenka madaxtooyada Khaatumo Cumar Jaamac Saleebaan madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa wuxuu ka hadlay arrimo doora waxaana kamid ah hadaladii ay ku hadleen mas'uuliyiintaasi sida hadalada ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland warsaxaafadeedkaas oo in fact aan meel dhaafin haday federal tahay hadii ay tahay maamul goboleedkan Khaatumo jawaabtiisa inaanu arrinkaas xasuusino dadweynaha xog waran weeye jawaabaha hadii wixii aad ku aragtaan runtii ma ay khusayso mana saameynayso shacabka reer Puntland iyo shacabka Khaatumo waxa u dhaxeeya daris wanaag walaalnimo wada shaqayn nabadgelyo ku wada noolaansho sidaan mar walba u sheegi doono waa dad walaala shacabka Puntland iyo shacabka Khaatumo balse nasiib daro hadii maamulku maxay tahay iska butaaco oo wuxuu doono iska ilaaho maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia xafiiska madaxweynaha ujeedo warsaxaafadeedku wuxuu ku saabsan yahay hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland kaasoo oranayay dawladda federaalka Soomaaliya awood uma laha inay maamul goboleed aqoonsato iyo hadallo meel ka dhac ah oo uu ku aflagaadeynayay deegaanada maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia dawladda federaalka Soomaaliya waa astaanta midnimada Soomaaliya ma jiri karo maamul goboleed awood u leh inuu dawladda federaalka Soomaaliya wax u yeeriyo maamul goboleedka Khaatumo State waxa uu ku dhashay baahi ay dareemeen shacabka deegaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ma jirto cid aan wax ka weydiinayna talada deegaanadayada ama soo faragelin karta gobolada maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia waxaan si buuxda u taageersanahay kana midnahay dawladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya waxaanu cambaaraynaynaa dhammaan falalka tacadiga joogtada ah ee maamulka Hargeysa uu ku hayo shacabka deegaan magaalada Laascaanood waxaanu maamulka Somaliland ama Hargeysa ugu baaqaynaa inay ka baxaan deegaanada maamulka Khaatumo ee ay gardarrada ku joogaan dhammaan gobolada ay ka kooban tahay maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia ma jirto cid aan Khaatumo ahayn oo ka hadli karta ama wada xaajood ka gali karta waxaanu maamulka Faroole ugu baaqaynaa inuu faraha kala baxo arrimaha maamulka Khaatumo haddii uu faraha kala bixi waayo waxaan u sheegaynaa in aanan dib ugu dulqaadan doonin waxaan Faroole ugu baaqaynaa uga digaynaa hadallada macna darrada ah ee uu garowga la joogo wax saameyn ah oo ay Puntland nagu leedahay ma jirto waxa naga dhaxeeya waa daris wanaag iyo xiriir ka soo jireenka ee shucuubta Khaatumo State of Somalia iyo Puntland madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia Axmed Cilmi Cismaan baa ku saxeexan wadmaadsantii hadii uu dawaa meel ka dhaca hadda halka ku qoran haduu ismadii iyo waxgaradkii iyo talaqabeekii uu dumar iyo caruur mashxarada iyo ku tilmaamay kama jawaabayno dadka reer Puntland shacabka reer Puntland iyaga tusayna dadku tashado oo taladiisa ku meel maro wixii kale waa sabrantay waa caawimo iyo gacan la siiyo Sheikh Shariif way taageertay waa ictiraaftay u sheegaynaa inay si degdeg u sii daayaan dadka ay caruur baa ku jirta ciyaar iskuul baa ku jira dumar irmaan baa ku jira ilmaheedina la saacad laga tagay yara Mandheera iyo Burco ku xiran marka arrin aanu ka daqaadan karno ma hadii awal ay ku shuraakoobeen maamulka madaxda maamulka Puntland oo shalay ugu dambeysay Faroole oo lahaa waa lagu murasan yahay lagu murasana maamul ay leeyihiin baa jira marka waxaan u sheegaynaa inay sad degdega u soo daayaan dhulkoodii ugu soo celiyaan oo kala baxaan dhulalka Sool iyo Sanaag iyo Cayn hay'adii aan halkan soo degin oo ka hawlgelin sida maamulada kale oo aqoonsan inay maamul tahay kama shaqayn doonto haddana kama shaqaynayso dibna uma shaqaynayso ku martigelina amnigooda laga ballan qaadnay deegaankooda laga ballan qaadnay
waxa baahida shucuubta kale oo gobolada u baahan yihiin baa shacabkayaguna u baahan yahay. Cabdikariin Olol, S24 TV, xarunta magaalada Taleex ee gobolka Sool.